waxaynu eegaynaa iminka saameynta caafimaaded ee cuntada. Haddaba xanuunada laftigeeda cuntada ka yimaada way fara badan yihiin. Xanuunka waxaanu ka qaadan karnaa meelaha soo socda. Waxaa ka mid ah junky food ama cuntada baarixiga oo kale. Sidoo kale debated soils modifications iyo postides waxaa loo yaqaan waa cuntada saliidda badan lagu kariyo, cuntada dufanka leh iyo sidoo kale cusbada badan kuwa lagu kariyo. Sidoo kalena long transit times yani cuntada afka iska ballaqan yani way iska ballaqan tahay duqsigii baa ku dhacaya misna haddana waxaa imaanaya dabayl baa imaanaysa ku dhacaysa afkeedan uu kala balaqay. taasina waa laga qaadaa. waliba badan waxaa laga qaadaa xanuunka loo yaqaano typhoidka. sidoo kalena waxaa ka mid ah meelaha aynu ka qaadan karno maaragtay xanuunada cuntada waa overcooking foods yani cuntada markii in badan la kariyo oo la iska kariyo saacado fara badan waxaa imaanaya kow boqolkiiba 20 nutritionka jirka u baahan yahay oo cuntada uu ka heli lahaa meesha ka baxaya markii wax badan la kariyo. misna sidoo kale markii talaagad la geliyo oo saacado badan laga tago boqolkiiba 20 nutritionka waa ka baxaya. markii shawaayada la dul saaro laftigeeda oo saacado badan laga tagana boqolkiiba 20 nutritionka waa baxaya. sidoo kale markii microwave-ka la geliyana boqolkiiba 20 nutritionka jirka ugu baahan yahay waa uu ka baxaya because saacado badan baad uga tagtay microwave-ka. so marka dabcan aan cuntada in badan aan karino oo saacado badan dabka aan saarno marka sidoo kale saacado badan aan ka tagno freezer-ka dhexdiisa microwave-ka iyo sidoo kalena shawaayada waxay imaanaysa cuntada markaan cunayno inay noqoto cunto aan lahayn wax calcium aan lahayn wax protein aan lahayn wax zinc aan lahayn wax macaadin oo kala jirkeena u baahnaa. bal waxaan eegaynaa haddaba saameynta caafimaad ee xanuunka ridishka loo yaqaan ama dhaxalka. xanuunka dhaxalka haddaba waa xanuun la iska qaado wey soo guud ahaan waa xanuun ku jira oo wuxuu ku baday dadka isku faamilka. bal waxaan eegaynaa calaamadihiisa. kala duwanaanshaha xagga midabka timaha, kala duwanaansho xagga midabka jirka, maqalka laftigiisa wuu kala duwan yahay. maqalkaagu waa caadi laakiin mid baa jira maqalkiisu wuu culus yahay. kala duwanaanshaha xagga wejiga, maybe wejigaaga waa dhalinyaro laakiin mid baa jira wejigiisu waxaad moodaa inuu 50 jir yahay waana dhalinyaro waa xanuun way dabcan. sidoo kale kala duwanaansho xagga dhiigga, maybe dhiigaagu waa A+ laakiin kan dhiiggiisu waa B+ ama waa O+. so haddaba xanuunka DNA-ga ayaa lagu baaraa. so markii DNA-ga lagu baaro dabcan xanuunkaasi qofkii waxaa la ogaanay in xanuunkiisa uu yahay heritage iyo in kaleba. bal waxaan eegaynaa haddaba xanuunada dilaaga ee saameeya caafimaadka. xogta ugu dambeysa ee ururka caafimaadka adduunka kasoo baxday WHO waxa ay sheegtay in xaaladaha dhimashada ay ku badan yihiin caalamka waliba xanuuno kala duwan ayaa loo dhinta. waxaa ka mid ah koob xanuunka wadnaha boqolkiiba 47.8 oo dhintaba. kansarka 28.9 boqolkiiba ayaa dhinta sanad kastaba. xanuunka beerka 5.8 oo dhinta sanad kastaba. xanuunka macaanka laftigiisana boqolkiiba 6.7 ayaa dhinta sanad kasta. iyo sidoo kale xanuunada ka laftigoodana iyagana sidoo kale waxay u dhintaan dad gaaraya 14.2 boqolkiiba. bal waxaan eegaynaa xanuunka wadnaha haddaba. baaritaankii hore lagu sameeyey dadka qaba xanuunkaasi ayaa waxa uu sheegay in 17.5 milyan inay u dhinteen xanuunka wadnaha. sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxa uu saadaalinayaa in guud ahaan sanadka markii la gaaro 2030 haddii alla xilligaasna gaarsiiyo in ay u dhiman doonaan dad gaaraya 23.6 milyan oo dad xanuunka awgeesba. taasina cilmigeeda ilaahay baa og laakiin waa saadaalin ay saadaalinayso WHO. xanuunka macaanka ma fiirina. WHO hadda waxay soo saartay baaritaan ku saabsan tirakoobka dadka qaba xanuunka macaanka ama kuwa u dhintayba. 1985 waxaa u dhintay xanuunka macaanka 30 milyan oo qof. 2011 waxaa u dhintay 366 milyan oo dhintay. waxayna saadaalinaysaa in 2030 haddii alla xilligaasna gaarsiiyo inay u dhiman doonaan 552 qof oo qaba xanuunka macaanka. taasi waa saadaalin taasina sidoo kale cilmigeeda ilaahay baa og. haddaba waxaan eegaynaa asbaabta keenaysa xanuunka macaanka. shaaha sonkorta badan lagu kariyo, xalwada markii la cunayo haddii aad raacayso shaaha mas haddii aad raacayso sidoo kale kafee sonkor leh. sidoo kalena nacnaca badan laftigiisa nacnaca markaad cunayso wuxuu leeyahay limit ama xad. sidoo kale cabitaanka sonkorta laftigiisa waa laga qaadaa. sidoo kalena dabcan waxaa ka mid ah qaraha laftigiisa cunida xad-dhaafka ayaa sababaysa in sonkortu timaado because hal xabo qara haddaad cunto dabcan waxba kuma saameynaysa laakiin haddaad 100 xabo isku mar aad cuntid way ku saameynaysaa.